የተከበሩ የፓርላማ አባላት፣ የተከበራችሁ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት እንዲሁም ክልል ፕሬዝዳንቶች፣ የተከበራችሁ እንግዶች እንኳን ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በዓል በሰላም አደረሳችሁ። runtii waxaan oo wanaagsanaa ciyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la gareyso waxaan rabbi subxaanahu wa ta'aala aan kaga baryaynaa umuuraha leedahay ilaahay inuu sahlo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ana awlaada uu barakeeyay inta awlaadoonka aan ilaahay awlaad baari ah hasiyo inta guurdoonka aan guur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna hasiyo qof walba muuqaalka leegta ku qabta waxaan rabbi subxaanahu wa ta'aala aan kaga baryaynaa dambigood iyo dambiga waalidkood baa inuu dhaafo rabbi subxaanahu wa ta'aala aan uu ku casuumo jannatul الفردوس الأعلى وعن حاسد كلنا ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وعن ربي سبحانه وتعالى عن كبر إن حاسدين تا إن هو يبقى وكل ده ما أنت بموقعك تيشر جريء لنا وداجة صاحب دين وعن كهل الدنيا تاريخ ده شخص يجي يجور إياه إثيوبيانا وحلقي يجور سرية كقبتي الصومالية كاس ونقدي قسمها رجل وزراء الصومالية مهدي محمد جولات يقول بتكومنتيو يقرأ على السرعة وأرنت أسيكو سابسان مهدي محمد جولات وحمج عيسى لشيء إن اللي يراهدو بعد تنصي وحنا وكل شيء ميل 40 كيلومتر دنك كوفريت كجا جرت مغالada عديس أبابا ee xarunta dalka Itoobiya بعد تنصي مهدي محمد جولاد قدر wuxuu soo qabtay xilal kala duwan kaas uu ka soo qabtay dalka Itoobiya waxaana uu kamid ah shakhsiyaadka sida weyn uu soo barbaariyay ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya Malla Zanaawi waxaana la sheegay Malla Zanaawi oo si weyn howshiisa ugu bagay inuu dhiibay xilal muhiim ah oo ay ku jirta in Soomaaliya gudaheeda uu ka shaqeeyo aakhirkiina hadda inay u suurtooday Mahdi Maxamed Guuleed baadhi tadhase inuu noqdo kusimaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya baadhi tadhase dukumeentiyada iyo waliba qoraalada aan helay waxay muujinayaan in xilli uu noqday taliyaha nabad sugidda ee dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada caasimadda u ah Itoobiya Addis Ababa waxaana la sheegay in muddo xilkaasi uu hayay xilligii ra'iisul wasaaraha uu ahaa Malla Zanaawi baadhi tadhase oo ah shakhsi aad u firfircoon Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waxaa la sheegay kadib in Malla Zanaawi uu soo wareejiyay deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee haysato waxaana sidoo kale Mahdi محمد جولات سوين وملا سناوي كلاتا شنجري شخصي جم مدحوينا لقد دقيو ديجانكا سومالي دا إثيوبيا وحنا ضمان حمليه مدحوينياشا كسر نقضي ديجانكا سومالي دا إثيوبيا رساجين وحيان شخصيات ومامول جري بعد تدسة مهدي محمد جولات وحنا آخر كي لصو دري ديجانا دا سومالي لان هالكاس وكان نقضي قبرها سومالي لان فديا بعد تدسة مهدي محمد جولات قدر وحنا ديجانا دا سومالي لان رساجين وكم إذا شخصياتك وجو أبو badan ka hor intuusan soo naqanin gudoomiyaha maxkamadda sare ee deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waxaana la sheegay in Malla Zanaawi uu wakiil kaga dhigay deegaanada Somaliland baadhig tadhase Soomaaliyana uu u soo diray shakhsigii lagu magacaabi jiray General Gabre baadhig tadhase oo ah shakhsi aad u firfircoon Mahdi Maxamed Guuleed hooyadiisana la sheegay inay ka soo jeedo qabiilka Oromada ee hadda xukunka Itoobiya haya saaxiib dhowna yihiin Abiy Ahmed ayaa aakhirkii hadda waxa uu suurtooday inuu noqdo kusimaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dhowr sano uu ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya baadhi tadhase waxaa la sheegay in calaaqaad iyo xiriir aad u wanaagsan inay leeyihiin ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed kaas oo la sheegay inuu ka mid yahay shakhsiyaadka sida weyn Abiy uu aaminsan yahay baadhi tadhase waxaa dugsigiisa hoose dhexe sare iyo waliba jaamacirkiisa jaamacadeed uu ku soo qaatay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya waxaana uu ka mid yahay shakhsiyaadka lafdhabarka u ah dawladda Itoobiya ee waqtigan waxaa sidoo kale u suurtooday inuu noqdo kusimaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sidoo kale baadhi tadhase Mahdi Maxamed Guuleed waa gudoomiyaha xisbiga nabad iyo nool halka musharaxa xisbigaasina uu yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa la sheegay in baadhi tadhase uu ka mid yahay shakhsiyaadka sida weyn warka uu kaga maqlo shakhsiga lagu tilmaamay in dawladda Soomaaliya uu ugu awood badan yahay ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir مستر بادي تدسه مهدي محمد جولاد قدر وحالا شيء إنه يعيش شخصي عاد وقف معان إسلام مركانا في صومالي عاد وقهل لكرا مركا لقى صوت تقول قدة وقول شيء إثيوبيا وحنا دور مرة لها ياكل بيوكو عادنا أصوك قيب قال يا حفلة دو أو وين أو كده حي مقالة عدي سببا يكوا كده حي ديجان كصومالي إثيوبيا دقدقة وحنا ونقضي شخصي يلك وقصر ياك قبت صومالي إثيوبيا ناس الكيسة كاسو حدا كوسي مهرج وزارها صوماليا قرنا وحن إديسو قد بين دون
doonaa taariikhda baadhi tadhase mahdi maxamed guuleed ka hadda kusimaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya taas oo muujinaysa dukumiintiyo ka duwan kuwa hadda aan soo bandhignay waxa dukumiintiyadan ku cad baasaboorka baadhi tadhase xafladihii uu ka qayb galay iyo waliba qoraale kale oo baadhi tadhase uu sameeyay xilligii uu ahaa taliyaha nabad sugidda Itoobiya gaar ahaan tan magaalada Addis Ababa waxaana intaasi sii dheer in xilli uu noqday kusimaha taliyaha sirdoonka ee Itoobiya guud ahaan waana shakhsi si weyn howlo waaweyn u soo qabtay dawladda Itoobiya waxaana baadhi tadhase la sheegay in sidoo kale uu ka dambeeyay shirqoole iyo dilal ka dhacay gudaha Soomaaliya asiga iyo General Gabra oo wakiil labadooda wakiil u ahaa Soomaaliya ama wakiil kaga ahaa Soomaaliya dawladda Itoobiya laakiin wakiilnimadiisa hadda waxay isku rogtay inuu ka mid noqdo madaxda dawladda Soomaaliya waana nasiib darrada ugu weyn oo haysata dadka Soomaaliyeed in shakhsi Itoobiyaan ah maanta inuu yahay kusimaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya shalayna uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Soomaaliya Itoobiya ayaa waxaa ka dhaxeeya dagaal soo jireen ah iyo waliba colaad aad u gaamurtay laakiin hadda waxaad moodaa in dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah ay hilmaameen colaadii soo jireenka ahayd ee nagala dhaxaysay Itoobiya دمانتين بإلهي أيضا حفظي إلهي أمورها الذين هسألوا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلة إلهي ودمانتين بوحنك ويديسان ناقر قار كالمدى هذه نحريست هذا يا ربي إله فرج خير وأفر أمد الصوماليين وميلو البو الصومالية جوكت إله ونحريسه إلهي ودمانتين بوحنك ويديسان نحريست هذا الدنيا مدى آخر الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء والحسنى إله دمانتين با غرغار كاغا نحريست هذا دمانتين بإله وينسيه إله دمانتين با فرج خير قبا إله وينوفر إله دنبيدني دنبي والدكين برداف دمانتين با ربي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه نقول كل مية جنة الفردوس الأعلى إلهي وأنت حنوس حنومك كدل قاد وعافمات وقبدر إله وأنت أولاد الله أنت عيسانا إله أولاد باري هسي إلهي وأنت قردون كأنا قر وأنا أحسن مستقبل وأنا أحسن يا ربي إله سي لما أنت بإله وينون حريصه وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله لما أنت بوحن كويدي سنة ناقر كاقي نحريست هذا إياك نعبد وإياك نستعين يا رب إله لما أنت فرج خير قبل إله ونفر وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم